السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود كسو دوادا مقالدين امتحانها إنو أهاي وان كبرنين إكزيل فول كورس قيبتي سي سدحات قيبتان وحان كبرن دونا وحلو يقانو كويك أكسس تولبا iyo wax loo yaqaano insert functions iyo worksheets iyo si la mid ah status bar waxaan ku bilaabi doonaa wax loo yaqaano quick access toolbar wuxuu kaa kaafinayaa inaad ka maaramto keyboardkaada oo halkii aad isticmaali lahayd control iyo s asla qaban lahayd oo macnaheedu yahay save halkaas ayuu ku saaran yahay halka kale waxaan ku haysanaa meeshaad ka isticmaali lahayd control iyo z dhanka kale waxaa xiga wax loo yaqaano redo oo macnaheedu yahay control iyo y waxyaalaha halkan ku saaran si aad u controlsho waxaad isticmaali kartaa calaamadan loo yaqaano meesha laga controlo quick access toolbar dhibcaas ku dhufo kadib waxaad arki doontaa waxyaalaha meeshaas ku saaran hadda waxaan ku haysanaa wax loo yaqaano save oo wax ugu horeeya halka kale waxaan ku haysanaa undo iyo redo hadda u baahantaa wax kale waa soo gashan kartaa adeeg ay kugu xiran tahay tusaale koowaad waxaan soo gelinay new markaad soo gelisay new halkaas ayuu ku fulayaa new macnaheedu waa halkaad isticmaal lahayd control iyo n asla qaban lahayd halkaas ayuu ku saaran yahay uma baahnid inaad isticmaasho keyboardkaada hadda u baahanta inaad ka bixiso asaga oo new aadan u baahnayn asaga ayaa ku dhufanay kadib tigta markuu ka qaadmo asana waa baxay marka hadda soo laawad asaga si la mid ah waxaan ku haysanaa waxyaalo kale optiono badan waxaan arki doonaa wax loo yaqaano show below ribbon marka taas wuxuu ku tusayaa ribbonkan oo kan ah in aan ku hoos marino quick access toolbar oo korsaran si taas aan u sameyno waxaan ku dhufanaynaa show below the ribbon marka taas aan sameyno waxaan arkaynaa quick access toolbar oo noo maray qaybtan hoos oo ka hoos maray ribbonka si aad meeshaas u geyso asaga ayaa dan ku dhufanay show above the ribbon marka wuxuu ku soo laabanaya meeshiisa intaas waa waxyaalaha ugu muhiimsan quick access toolbar oo ka kaafinaya inaad isticmaasho keyboardkaada halka kale waxaan ku haysanaa oo aan ku arki doonaa qaybta kale ee noo xigta ayaa ah insert functions excel sidaad wax ugu xisaabin lahayd si aad excel wax ugu xisaabiso waxaad ku dhufani calaamadaas ay ku qoran tahay fx asaga markaad ku dhufato waxa kuu soo boodaya windowgan adiga ayaa controlaya wuxuuna ku kala bixiyay qaybo fara badan qaybta ugu horeysa wuxuu ku leeyahay geli function hadaa u baahan tahay oo aadan meeshan ku arkin waxa functionka u baahneed meeshan ku qor kadib go dhah marka qaybta kale waxaa xigta wax la yiraahdo dooro category arto hadda anaga waxaan doornay kuwa badan la isticmaalo halka kale waxaan ku haysanaa optiono kala duwan oo ay ka mid yihiin financials date and time adiga ay ku xiran tahay laakiin anaga waxaan arki doonaa badanaa kuwa la isticmaalo oo ay ka mid yihiin average sum iyo if iyo kuwan ay ka mid yihiin tusaale kale qaybta ugu horeysa waxaan ku baran doonaa sida excel wax lagu xisaabiyo isku darida sida excel wax isku dar leed adigoo isticmaal excel meeshan wuxuu ku leeyahay samada doorata waa isku daray ku leeyahay tirada isku daya kadib dooro lambarka meesha aad gelin lahayd lambarka koowaad wuxuu matalayaa xisaabta koowaad lambarka labaadna wuxuu matalayaa xisaabta labaad aad doonayso inaad isku darto hadda ku soo dhafto mid kale si furma marka halka kale waxaan ku haysanaa meesha natiijada ay noo gal lahayd markii lambaradana aan isku darno tusaale kale lambarka koowaad waxaan rabnaa inaan waxa aan soo gelino aan isku darno 20 ayaan qornay lambarka labaad waxaan rabnaa inaan ku darno 20 labo oo kale waxaan rabnaa inaan ku sii darno 5 oo kale marka waxaan isku darnay 20 lagu daray 2 lagu daray 5 tiradana wuxuu meeshan ku muujiyay equal wuxuu ku dhahay 27 intana sharaxaad yar ayuu ku muujiyay halka kalena waa resultiga ayuu ku muujiyay marka hadaa ku qanacday okay resultiga meeshaas ayuu kaaga soo muuqanaya habkaas waa habka lagu xisaabiyo excel wax lagu xisaabiyo dhanka kale waxaan ku arki doonaa excel sida lagu xisaabiyo averages sida excel u xisaabin lahayd tusaale kale averages aad u xisaabiso waxa u baahan tahay lambaro tiro aad qorato tiro kala duwan meesha aan ku qororto adiga ay ku xiran tahay meesha anaga waxaan u baahanahay lambar inaan qorqorno lambar meesha noo qor markaad lambarada qorato waxaad arki doontaa marka si aad u xisaabiso average-ka adoon xisaabinin waxba aadan taawanin intoodan inuu calaamay marka qaybtan status bar waxa ku saaran wax la yiraahdo average-ki adoo waxba xisaabin average inta uu ku sheegaya halka kale wuxuu ku leeyahay inta lambar aad meeshaas ku haysto waa afar lambar
halka kalena waxa uu ku leeyahay isku darka guud intaan lambar waa intaan. Marka adoo waxba aan xisaabin meesha aad u baahan tahay in average aan ku xisaabino ayaan dooranaa tusaale hore inta ayaan rabnaa inaan ku xisaabin average. Marka waxaan ku laawnaa fx ku laaw kadib average ka dooro meeshan okay da markaad tiraahdo intaas waxaad dooranaa marka lambarada aad rabto in average good ah hesho intaas ayaan dooranaa. Kadib wuxuu ku leeyahay marka result inta uu kugu muujinaya dhanka kalena waa ku haysta resultiga okay ID intaas uu kugu muuji tan iyo tii kan waa isleeyihiin adoo xisaabin okay. Average iyo waxaan baranay sida loogu xisaabiyo sum iyadoo la isticmaalayo fxtaas. Dhanka kale waxaan ku haysanaa wax loo yaqaano record numbers waa lambar aad u fara badan oo sheet-kan ku furan aad ku haysto. Marka si aad hoos u aado waxaad sameynay wax laga yaqaano waxaad qabanay control iyo down kadib waxaad imaan lambarka kugu dambeeyo laakiin hadaad mouse-kaada isticmaal lahayd oo aad maanta dhan waa ku daali lahayd. Marka hab ku fudud waa control iyo down lambarka kugu dambeeyo wuxuu kuu muujinayaa sheet-kan lambarka aad ku haysto ilaa 1 milyan oo lambar ah ayaa ku haystaa macluumaad ay meeshan gelin kartaa. Marka si aad kor ugu soo laabato aadan u daalin waxaad sameynay control iyo waxaad la qabanay up kadib kor ay imanay record numbers taas ayuu ka saaciday. Dhanka kale waxaan ku haysanaa wax loo yaqaano worksheet meeshan waxa inuu qoran yahay waxa aan ku qoran karno waxa loo yaqaanaa waa worksheets waxay matalayaan sheetska. Marka sheetska meeshan ayuu ugu muujinayaa hadda wuxuu ku leeyahay sheetka haysta waa sheetka koowaad magac waa ka bedel kartaa macna malo hadda mid kale artana taas ay ku dhufanay mid kale ay ku furmay asaga nagu soo celi hadda u baahan tahay inaad asaga tahay control meeshas ayaa waxaad ka soo gelin kartaa dhiilad ka dhigi kartaa rename ka dhigi kartaa qaybaha kale ayaan ku arki doonaa muuqaalada xiga. Marka dhanka kale waxaan ku haysanaa wax loo yaqaano status bar marka waxaa dul saaran normal page ka aan joogno iyo waxaa dul saaran wax loo yaqaano page layouts oo kana dhanka kale waxaan ku haysanaa marka page break preview intaas waxaan ku baran doonaa iyo zoom kiisa iyo dhamaantiisa waxaan ku baran doonaa muuqaalada xiga.